kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan YouTube-keena Himilada Nolosha. Baahida halisteedu kaliya kuma koobna dhinaca ruuxda iyo habdhaqanka qofka, ee sidoo kale dhibtu waxa ay koobsataa dhinaca qaab fikirka qofka danyarta ah ee aan helayn baahiyaha nolosha iyo kuwa dadka uu mas'uulka ka yahay. Sidee ayaa ugu suuragelaysaa in uu u fikiro hab wanaagsan oo togan, siiba haddii ay jiraan dad ku ag dheragsan oo la circiraya dahab iyo dollar. Waxa laga wariyay Imaam Maxamed bin Xasan Shaybani oo ahaa saaxiibkii Imaam Abu Xaniifa in ay shaqaalihiisii ku tiri waxa dhamaaday daqiiqdii ama burkii, oo uu ugu jawaabay, Ilaahay kuma waafajiye waxa aad madaxayga ka saartay 40 mas'alo oo fiqi ah. Sidoo kale waxa laga wariyay imaamkii weynaa ee Abu Xaniifa in uu yiri hala tashan qof aan haysan wax uu cuno. Taas macnaheedu waxa weeye waa qof maskax ahaan baxsan oo fikir dhex muquursan. Sidaas awgeed waxa uu go'aamiyaa ma noqonayo mid toosan. Dareenkaas ku taagan qofka ayaa saameynaya badqabka garashadiisa iyo tognaanta ra'yigiisa, sida lagu yaqaano cilmi nafsiga. Waxa ku soo arooray xadiis uu nabigu yiri nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, garsoore yaa aanu gar qaadin isaga oo cadhaysan. Waxa culimada fiqigu uga qiyaas qaateen gaajada daran iyo haraadka ba'an iyo dareennada kale ee qofka raadeeya. Nin gabya ah ayaa isna waxa uu yiri marka qofka xoolihiisu yaraadaan waxa yaraada ka haybaydaysigiisa, cirka iyo dhulkuna waa ay ku soo yaraadaan. Waxa uu noqdaa mid aan garanayn isaga oo is-og ma gadaalba u wanaagsan mise hore. Saboolnimadu waxa ay halis ku tahay qoyska. Faqrigu waxa uu dhinacyo badan halis kaga yahay qoyska, yagleelidiisa, jiritaankiisa iyo isku tiirsanaantiisaba. Yagleelidda qoyska waxa ugu weyn ee hortaagan waa baahida oo dhalin badan ka hortaagan guurka, iyaga oo aan awoodahayn meher iyo biilin, sababtoo oo ah ma laha madax bannaani dhaqaale. Sidaas darteed ayaa uu Quraanku kula dardaarmaya kuwaas oo kale ee aan helayn guurka in ay dhowrsadaan oo ay samraan jeer oo ay ka helayaan awood dhaqaale. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa yidhi ha dhowrsadaan kuwa aan helayn guurka jeer oo Ilaahay hodan kaga dhigayo fadligiisa. Sidaas oo kale waxa aynu ognahay in hablaha qaar iyo dadka ka mas'uulka ahiba ay ka hor yimaadaan qofka aan hayntiisu wanaagsanayn, xaalad jilicsanna ku jira. Waa dhib waayo badan soo jirtay oo Quraanku taabtay, kula taliyeyna aabbayaashu in ay ka cadaalad sameeyaan u dooridda ragga oo u eegaan wanaagga qofka oo aanay ku xisaabtamin oo kaliya xoolaha. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa yidhi guuriya kuwa aan waxba haysan ee wanaagsan, kana mid ah addoommadiina rag iyo dumarba. Haddii ay baahan yihiin, Ilaahay ayaa hodan kaga dhigi doona dheeraadkiisa. Ilaahayna waa mid wax kasta koobsaday oo ogaal dheer u leh. Sii jiritaanka qoyska ayaa aynu aragnaa in cadaadiska baahidu marmar ku noqoto dhib aan la loodin, taas oo keenta kala taga labada qof. Arrintani waa qodob qaanuunka Islaamku u arko wax lagu kala tegi karo, iyada oo shareecadu u banaysay qaadiga inuu gabadha ka furo ninkeeda haddii aanu biilin karin, kana adkayn waxa ay ku noolaanayso. Taasna waxa loo samaynayaa in dhibta gabadha laga kor qaado, iyada oo la dabaqayo qaacidada ah dhib ma jiro wax dhibaana ma jiro. Waxa inoo soo baxaysa in xiriirka dadka isku qoyska ah badanka waxa baabi'iya tahay saboolnimada, isagoo u siibaya xididada wixii kalgacal ahaa ee dhex yaallay qoyska. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa aynu ku arkaynaa Quraanka isagoo inoogu sheegaya dhacdo taariikheed oo argagax leh, taas oo ah in aabbayaasha barkood beerkoodii iyo carruurtoodii ka beermay dileen baahi saboolnimo awgeed, iyaga oo ka sii cabsanaya baahi soo socota. Waa dembi weyn oo argagax iyo murugaba leh, waana sababta Quraanku u diiday si cad. Ilaahay waxa uu yidhi carruurtiina ha dilina gaajo darteed, annaga ayaa idinka iyo iyagaba arsaaqayna. Suurad kale ayaa Eebba waxa uu ku yidhi carruurtiina ha dilina idinka oo ka cabsanaya gaajo, annaga ayaa idin arsaaqayna idinka iyo iyagaba. Dilkoodu waa dembi aad u weyn. Labada aayadood mar waxa la yidhi gaajo darteed oo macnaha gaajadii ayaaba haysa, marna waxa la yidhi idinka oo ka cabsanaya gaajo oo gaajadii ayaa la filayaa in ay timaado. Marnaba ma bannaana in baahidu noqoto sabab keenta dilka ilmaha oo ah dembi weyn, waana dembiga labaad
ee uu nabigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ku labeeyay shirkiga weyn ee Ilaahay laga galo. Nabiga ayaa la weydiiyay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dambigee ugu weyn, waxaana ku jawaabay Ilaahay oo aad wax la wadaajiso isaga oo ku abuuray. Waxa lagu yiri maxaa ku xiga? Waxa uu yiri in aad ilmahaaga dishid adiga oo ka cabsanaya in uu wax kula cuno. Islaamku waxa uu qirsan yahay raadadka dhaqaale ee uu ku leeyahay habdhaqanka qofka, oo raadadkaas ayaa gaari kara heer xadgudub ilaa heer ay meesha ka saaraan dareenno dhalad ahaa sida dareenkii aabanimo. Hase ahaatee xaaladaas mar la aragga ahi ma noqon karaan halbeegyo la saaro dadka oo dhan ee ku kala nool goobaha kala duwan ee adduunka, jirayna xilliyo kala gedisan iyo xaalado kala fog. Waxaa hubaal ah inay jiraan waxyaabo badan oo kale oo haga habdhaqanka dadka iyo xidhiidhkooda, kuwaas oo ah raadad nafsi, diineed, dhaqameed iyo bulsheed oo leh miisaankooda iyo raadkooda cad ee ay ku leeyihiin dadka dhammaan. Kaliya waxa halkan inoo muhiimka ahi waxa uu yahay in aynu caddayno in halista baahidu dad ku riixday inay carruurtooda laayaan iyadoo ay aqoon darro ka tahay. daawada haddii aad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka aad iyo aad baad mahadsan tahay. Fadlan mar labaad waxaan ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe saarto, like tuna videogan waa muhiim